madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa si ballaaran ugu soo dhaweeyay madaarka magaalada Abu Dhabi ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta sarsare ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta kadib markii madaxweynaha Soomaaliland martiqaad rasmi ah ka helay mas'uuliyiinta waddankaasi soo dhaweyn kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa loo galbiyay goobta loogu talagalay inuu ka dago magaalada Abu Dhabi ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo qayb ka waftigaasi ayaa ka warbixiyay soo dhaweynta loo sameeyay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminayay ayaa gaaray magaalada Abu Dhabi caasimadda waddanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dawladda Imaaraadka waxaana madaxweynaha markii uu gaaray magaalada Abu Dhabi si meeqaam sare ugu qaabilay madaarka mas'uuliyiin ka socda dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha muddada uu ku sugan yahay waddankan Imaaraadka Carabta waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta sare ee waddanka Imaaraadka Carabta waxaana safarkan madaxweynaha ku helinaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane Jaamac Maxamuud Cigaal wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta mudane Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mudane Maxamuud Xasan Saacad Saacin oo hore ugu sii sugnaa dalka Imaaraadka Carabta Shubadi ko nabad daliye